kulanka shanaad ee madasha wasaaradaha arrimaha dastuurka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Kulankan oo 2 maalin ugu socday magaalada Muqdisho, wasaaradaha heer dowlad goboleed iyo heer federaal ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka, waxaana halkaasi ay kula fugureen arrimaha dardargelinta dastuurka ee sanadkan 2018. Qaar ka mid ah madaxda ka socotay dowlad goboleedyada oo halkaasi khudbado ka jeediyay ayaa waxay isku raaceen in la dardargeliyo sanadkan dhamaystirka qabyo qoraalka dastuurka federaalka si loo gudbo dastuurka dukumiil gaarka ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliya leh dastuur ay ayada leedahay ayada ka timid gaarsiiyo diilada iyo horumarka ay leedahay. Haddaan nahay gobolka Banaadirna waxaan diyaar u nahay hormuudna ka noqonaynaa shacab iyo madaxba iyo farsamayaqaanba in sidii loo qabyatiri lahay dastuurkan aan u yeelan lahayn dastuur professional oo Soomaaliya leedahay oo adduunyada ay noqoto mid ay ka tusaale qaadato oo la yiraahdo dastuurkii Soomaaliya oo kale aan u baahannahay in loo sameeyo. Waa mahadsantihiin. aan doonayaa inaan uga meesha aan ka sheego in 5 xubnood oo ay maamul goboleedyada soo gudbsadeen aysan weli howlgelin. waxaan filayaa inaan weli fasiraad sax ah aanan ka helin sababta ay soo howlgelin isla markaasna dib eegistii dastuurka iyo 5 cutub oo weli gacanta hadda lagu hayo ayaguna ay ka maqan yihiin. taas waxaan dhihi karnaa waa arrin maaragtay caqabad ku ah dib eegistii dastuurka iyo habsami socodkiisa. shirkan ayaa gabagabadii waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, waxaana uu sheegay in la dardargelin doono dastuurka sanadkan dhamaadkiisa. saawigtihiinba ujeedada ka dambeysay inaan madashaan wada samaysano waxay ahayd inaan aragti ka wada yeelano habraaca loo maraayo dib u eegista dastuurka oo aan anagoo wada soconno aan wada dhamaystirnaa. shaqo fiican aan soo qabanay, aad baa idinku mahadinayaa xilkasnimada weyn aan muujiseen iyo sida aan uga soo wada shaqeynay ilaa inta aan soo gaarnay. saa ogsoontihiin waxaan goosanay inaan soo dhamaystirnaa dastuurka 2018. meel fiican ay noo maraysaa hadda. labadii guddi oo dastuuriga ah shaqadooda waa wadaan. arrimihii u baahnaa in laga helo xal siyaasadeed waa bilowdeen. saa ogsoontihiin 5 Juun sanadkan magaalada Baydhabo heshiiska ugu horeeya laga soo gaaray arrimaha xalka siyaasadeed federationka oo ama federaaleynta mataqaana qosaysa. dhamaadkii shirkan ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warbaahinta u akhriyay Cabdixasiis Xaaji Goobdoon. qodobada ka soo baxay madasha wada xaajood iyo falanqeyn dheer kadib madashu waxay isku raacday qodobadan soo socda. 1 madashu waxay uga mahadcelinaysaa wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo martigelisay shirka shanaad ee madasha. 2 madashu waxa ay soo dhaweysay horumaradii laga gaaray geedi socodka dib eegista dastuurka ee 3 bilood ee la soo dhaafay, sida qabsoomidii shirweynaha qaran ee dastuurka, tababarka tababarayaasha ee waxbarashada madaniga iyo wacyigelinta dadweynaha, iyo heshiisyadii golaha amniga qaranka ay ku gaareen magaalada Baydhabo 5 Juun 2018. 3 madashu waxa ay garwaaqsatay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ee 13 ilaa 16 Maajo 2018 ee ka dhacay magaalada Baydhabo, kuwaasoo ku aadanaa howlgelinta xubnaha dowlad goboleedyada u soo magacaabeen guddiga la socodka dib eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib eegista iyo hirgelinta dastuurka. Cabdikariin Shadane, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, magaalada Muqdisho.